Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa u dareeray tukashada salaada Ciidda saake aroor hore iyadoo muslimiinta kale ee dalkani Koonfur Afrika ay Hindidu tukanayaan maalinimada birita ah. Salaada Ciidda ayaa lagu tukaday barxadda Mayfair Bowling Club ee ku taala xaafadda Soomaalida ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Salaada Ciidda ayaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay walaaltinimada iyo in la isku gargaaro. وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا. One another, see one another, go to one another, visit the sick, visit the poor, visit the neighbor, everybody. ومن طبعا ما كان يكرنا ومن سبب كل وجه على هنا مركز تمرنا المكان يكرنا ساتر هذه المركز دقيقة كومنا هيستو كلمات عن ربنا وحكي هذا الكلام وحاول waxa loo yaqaano al-ukhuwa al-iimaaniyya ama walaalnimada dadka muslimiinta ah waxaana kala soo qayb galay jaariyada Soomaalida dalkani Koonfur Afrika tukashada salaada Ciidda qunsulka ahna ku xigeenka safiirka safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika Ali Maxamed Sheekh Ali Begedi oo markii salaada la tukaday la hadlay TV-ga Universal ayaa Soomaalida ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidda wuxuuna ugu baaqay inay caawiyaan kuwada dhibaataysan hadaladiisii waxa kamid ah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ciid mubaarak gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika ciidan ciideed Ilaahay inuu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxaan kula dardaarmayaa dad waxa jira iyagana Soomaaliyeed oo runtii aan jeebkooda waxba ku jirin caruurtooduna ay sugayaan marka inaad xusnaataan ayaa idin rabaa haddii aad ugu caruurtaada ay faraxsan yihiin waalidiin waxa jira maanta caruurtooda waxba jeebkooda ugu jirin marka walaalayaal dariska ka warhay dadka kale Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha ka warhay ruux waliba waxaad awoodo qofka walaalkaaga Soomaaliyeed ee ku dhow adigana waxa laga rabaa sida uu faraxsantahay ilmaaga uu faraxsan yahay ilmihiisu farxaan aniga farxada ay tahay maadaama ay tahay markii ugu horeysay ciidii ugu horeysay ee aan ku ciido South Africa waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin Ilaahay ayna barakeeyo ciidan Ilaahay barwaaqo bulshada Allah noo gaarsiiyo dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan ciidul adha gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan salaamaynaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda ku nool dalka South Africa waxaan leenahay ciid mubaarak maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha August waxaan ku tukanay magaalada Johannesburg barxaddan u jeedaan oo dhowr kun oo qof oo muslimiin ah isugu timid oo kala duwan waxa weeye maanta oo kale waa yawmul hajj al-akbar ciidan ayaa kaga duwaneed jaariyada Soomaalida dalkani Koonfur Afrika oo ay la ciideen muslimiinta caalamka waxaana inta badan dhacda inay maalin ka dambeeyaan muslimiinta caalamka qaar kamid ah dadkii ka qayb galay tukashada salaada Ciidda ayaynu fursad u siinay inay eheladooda salaamaan waa kuwan qaar kamid ah dadkii ka qayb galay barnaamijka salaamaha Ciidda ee Universal TV عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك waxaan leenahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ciidan waxay uga duwan tahay ciidii hore jaaliyada Soomaaliya South Africa ciid jirtay ciidan waxa dhacday inaan dunida muslimiinta la ciidno ayada oo wadankan Koonfur Afrika lagu yaqaanay in Soomaalidu ay maalinta dadka muslimiinta ay ciidaan maalinta ku xigta ay ciidaan ciid mubaarak baan leeyahay ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo family-gayga dhammaan asxaabteeda waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta ku kala sugan tihiin dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan si qaas waxaan u salaamayaa ummadda muslimiinta qaas waxaan u salaamayaa Soomaaliyeed meel ay joogto si qaas waxaan u salaamayaa hooyada Xalimo Cabaas oo ku nool gaalkacyo gobolka Mudug ciid mubaarak qof walba islaam ah gaar ahaan waxaan salaamayaa familkayga hooyaday walaalahay oo Mareykan joogo hooyo walaalahay kulli waxaan leeyahay ciid mubaarak jaariyada Soomaalida dalkani Koonfur Afrika ayaa laga dareemayay farxad iyo reenreen iyagoo la wadaagay muslimiinta caalamka farxadda munaasabadda Ciidul Adha Aydros Cabdi Xasan TV-ga caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika